asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaynu kaga hadli doonaa barnaamijkan waxyaalaha daalka keena iyo sida looga baxo. Welibana waxaynu awoodda saari doonaa siyaabaha ugu fudud ee looga baxo. Waxaynu weliba diiradda sii saaraynaa shanta ugu waaweyn ee aynu rajaynayno inay rag iyo dumarba saameyso. Kadibna waxaynu ka hadli doonaa waxyaalaha u gaarka dumarka iyo sida ay u saameeyaan noloshooda, iyo iyaga oo ku dhisan talooyinka aynu bixin doono. Kusoo dhawaada channelkaygan Cabdilaahi Sheekh Cabdiraxmaan. Waxaan rajaynayaa in aad ka faa'iidaysan doontaan cilmigan bilaashka. Aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Maskaxdu waa meelaha iyo muruquba ugu baahida badan biyaha. Maskaxdeenna waxaa daboola ama isku xidhaba ama isku gudubka dareenwadayaashooda ka shaqeeya waa nidaamka electrolyteska iyo biyaha. Haddaba haddaad u fiirsato periodic table-ka, waxyaalaha ugu muhiimsan ee naga soo raaca ama jirkeena ugu badan waxaa ka mid ah sodium, potassium iyo calcium, magnesium iyo wixii la mid ah. Marka ay periodic table-ka joogaan, waxa ay yihiin qaar nidaam neutral aynu ku dhiganno, laakiinse marka ay yimaadaan gudaha jidhka waa ay ka duwan yihiin oo waxa ay sameeyaan in ay u dhaqmaan sidii ay yihiin oo kale iron wax loo yaqaano. Iron-kuna waxa weeyaan charged atom loo yaqaano ayaa la yidhaahdaa iron. Marka sodiumta iyo potassiumta waxa weeyaan, markaan soo koobay inaan cilmiga usii gaadhin, nidaamkoogu inta badan waxa weeyaan positive iron. Laakiin magnesiumta iyo calciumtu iyaguna sidoo kale waa positive, halka ay chloride ka tahay negative iron. Ma jecli inaan si cilmiyeysan uga sii sheekeeyo, waayo dadka dhageysanaya badankoogu caafimaadka waxba kama garanaya. Laakiin haddaan soo dhaweeyo sida milixda oo kale. Milixda marka aynu qaadano jirkeena, qof walba uu garanayaa in ay ku milanto biyaha. Biyaha markay ku milanto waxaa loo yaqaanaa afka caafimaadka electrolyte, taasi oo ay ka dhigto ama ay ku gudbiso charges ka duwan kuwii hore. Isla chargeskaasi waxa ay sababaan isku socodka biyaha iyo ioniska jidhka dhex maraya, ama waxyaalaha jidhku ka kooban yahay inay ama cuslayso ama fududayso, inay biyaha jidhka ka saarto ama ay ku hayso. Haddaba qofkaasi haddii uu ka soo qaad biyo badan aanu cabbin, jidhkiisii waxaa ku dhacaya dehydration, inuu qofkaasi dareemo inuu ooman yahay, dabadeedna madax xanuun iyo daal ayaa isku raacaya. Si haddaba taa looga badbaado, qofku waa inuu isku dayaa inuu thermoregulationka waxa loo yaqaano, oo ay weliba ugu muhiimsan tahay maskaxda iyo lafaha iyo nooc kale oo kolley meelaha lagu dhigto secondaryga osmosis la yidhaahdo, oo ah nidaamka biyuhu ay kaga tagaan meesha ay ku badan yihiin, ay tagaan meesha ay yar yihiin. Waxa ka dhigan sidaas oo kale jirkeena marka ay xididada ku badan yihiin, biyuhu waxay gaadhaan ama u baxaan xagga unugyada, halkaasi oo ay u gudbaan iyaga oo iyaguna biyihii siinaya jidhka, halkaasi oo interstitial loo yaqaano area ama interstitial fluid loo yaqaano, fluidka halkaa ku jira. Haddaba qaabka uu u socdaa wuxuu saameyn togan ama toban ama uu ku leeyahay jidhkeena. Haddii masalan milixdu ay kugu badan tahay, jidhkaagana laga saari waayo, waxaa dhacaysa wax loo yaqaano edema. Okay, haddaba qofku haddii uu masalan uu milix badan cumo, waxaa ku dhacaysa waxyaabaha la yidhaha hypoflemia. Haddii uu qofkaasi socod iyo orod fara badan yimaado, waxaa laga yaabaa inuu madax xanuun iyo waxyaalo caynkaasi ay ku dhacaan. Haddaba balanceka labada qaybood waa very important weeye. Haddii balanceka la ilaalin waayo oo biyaha qofku uu badsan waayana, waxaa hubaala inuu qofkaasi madax xanuun fara badan iyo daal fara badan uu ku iman doono. Weliba gaar ahaan marka ay qofka ku dhacdo in ay biyo la-aantaasi ay sababto inuu sidii wuxuu qofku gubtay oo kale, dabadeedna madax xanuun fara badan waxna qabsan kari waayo. Qodobkaasina waa kaa. Qodobka xigana waa jimicsiga joogtadii. Waxaa la sheegaa in uu yareeyo 35% khatarta xanuunada wadnaha ku dhaca iyo wixii la halmaala. Inaad dibadda u baxdo oo jimicsi sida baaskiilka iyo boodboodka iyo orodka aad samaysaa, waxa ay keenaysaa inay kaa yarayso daalkii joogtada ahaa ee la arkayay ama kugu soo noqnoqonayay. Waxa ay kala wanaajisaa wadnaha. Wadnuhu waa sida muruqa oo kale, haddii uu helo exercise iyo dhiig fara badan oo soo maro, weynaanaya, wuu xoogaysanaya.
kadibna waxaa dhacaysa in garaaca wadnaha uu tuuray inuu gaadhayo sababkan oo oxygen fara badan uu dhiigga siinayo, isla markaana dhiiggaasi uu jidhka intiisii kale tagayo, gaar ahaan lugaha oo kale. Marka uu gaadho lugaha, waxaa dhacaysa haddii oxygen fara badan ay jirto in uu xididadii ay samaysanayaan xidido yaryar oo fara badan, kuwaasi oo iyaguna sababa inay muruqyadii agagaarkaasi wanaagsanaadaan, caafimaadkooguna u kor u qaadmo. Marka mar walba exercise-ku waxa weeyaan shay aad iyo aad ugu wanaagsan bini'aadanka, gaar ahaan dadka inta badan macaanka qaba, waliba gaar ahaan type 2-ga nooca loo yaqaano. Waxay ku tusaysaa inay sonkor aad u badan dhiigga ka buuxdo, laakiin mar kasta uu exercise sameeyo, jimicsi la yimaado, hoos bay u dhacaysaa. taasina waxay keenaysaa in uu qofkaasi sonkortii ka yaraato, daalkii ka yaraado, jidhkiisiina uu ka nadiif noqdo sonkortii gubaysay. Marka taasina waa qodob aad iyo aad u muhiima. baadhitaanada caafimaadku dhammaantood waxay isla qirsan yihiin in seexashadu ay tahay shayga ugu muhiimsan habka lagu daweeyo daalka. waxay yidhahdeen markaa waa in maskaxdaada iyo qaabka aad u fikirto aad bedesho, oo aad tidhaahdo hurdadu waxay la mid tahay caafimaadka, ma aha caajisnimo iyo qof lazy ah. labadaasi waa inaad maskaxda ka saarto. Qofka la yidhahdo hurdo badan waa qof caajis ah. hurdo badniduna ma aha inaad limitka ka saarto, waa inta aynu sheegnay oo ah in ayna noqonin mid aad u yar, ayna noqonina mid aad u badan. waa inay noqotaa mid 8 saacadood, 7 saacadood ilaa 8 saacadooda. waxyaalaha kale ee iyadana awoodda la saarayo waxaa ka mid ah in schedule-ka hurdada laftiisu uu kula dhignaado sida wax loo yaqaano critical meeting, inaad leedahay sidii madaxweyne aad la kulmayso oo kale, si aad u ilaalin lahayd appointment-ka, inaad appointment-ka hurdadana aad u ilaaliso. waxyaalaha lagu ilaaliyo waxay ku sheegaan inay yihiin ilaa 4 tiir, oo ay ka mid tahay qofku horta kow inuu consistency, inuu joogteeyo oo uu ilaaliyo, aanu waqtigeeda ka sigsaadin. 2 in uu wax la yidhaha TV iyo mobile uu ka fogaado 60 mirir ama saacadda ka horeysa xilliga uu seexanayo, inuu iska ilaaliyo ama aad iskaga yareeyo waxyaalaha stresska ku keenaya xilliga uu seexanayo in yar ka hor, in uu noqdo qof jadwalkaa si joogtaa u ilaaliya. waxyaalaha waxay yidhaahdaan khalkhaliyo waxaa ka mid ah hurdada la seexda maalintii inayna ka dambaynin 3 wixii ka dambeeya, ayna kana badanin 20 mirir ilaa 40 mirir hurdada yare duhurkeenu seexana, ama aynu idhaahno naabka wax loo yaqaano. waxa la yidhaahdo inuu qofku sameeyo troubleshooting, oo ah inuu qofku waxyaalaha troubleshootingka iyo dhibaatada siduu u bedeli lahay ka mid tahay in uu aroorta hore tooso, baatankiisan ilaaliyo, cadeeda u baxo, soo socsocdo, jimicsi sameeyo. haddii haddaba iyadoo xaaladahaas oo dhan uu samaynayo, waxay yidhaahdaan ay hurdadiisii iyo daalkii hayay uu ka bixi waayo, waa inuu qofku si dhaqsaa dhakhtar ugu tago. cuntadaada si maskaxaysan u dooro. baleeg labadan sida ay kilokalorigoogu kala badan yihiin, qiyaas ahaanna waa isku mid. markaad u fiirsato labadan fruitiska iyo iyagoo farasha iyo iyagoo macaan lagu daray, kilokalorigoogu aad buu kala sarreeyaa. mar kasta oo aad laba layska rabdhigaya sida kuwan oo kale iyo kuwa soo socdaba, aad u fiirsato kilokalorigooga dusha kaga qoran, waxaad arkaysaa in inta badan ka midigta xiga uu yahay ka u wanaagsan qofka bini'aadanka inuu cuno. laakiin inta badan waxaynu door bidnaa ka xagga bidixda ku yaala, ama aan dhinaca bidixda kaaga muuqda, kaasi oo inta badan inoo macaan, laakiin aynu inagu xiisaynayno caafimaad ahaana aan inoo wanaagsanayn. marka muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan waxyaalaha daalka faraha badan keena waxaa ka mid ah haddii qofku uu cuntadiisa xulan waayo oo uu hagaajisan waayo. stressku waxa weeyaan qodobka 5aad ee isagana daalka iyo madax xanuunka keena markay qofka iskugu kusoo ururaan oo kala gurmi weydo hawshu, waxay keentaa in uu daal fara badan oo maskaxeed iyo dhiigga oo ku kara, inuu werwer fara badan, caloosha xanuunta, hurdada oo ka khalkhasha iyo xanuuno fara badan inuu ku keeno. taasina ay keento inuu madaxuba ka weynaado, waxna uu qaban kari waayo. haddaba markay tani timaado, xaaladahan iyaga waxaa lagula dadaalaa in aad 4tii hore aynu soo sheegnay aad samayso, oo aad iyaga iska saarto stresska
hawlahana sida ay u kala fudud yihiin u kala gurto anad u kala habayso stresskaasina sida ugu dhaqsaha badan leh aad iskaga dulqaado intaad karayso. Waxayna yidhaahdaan intuuna isku ururin inaad sii hagaajiso ayaa wanaagsan. Marka kaasina waxa weeyaan qodobka shanaad ee qodobada waaweyn ee aynu u baahannahay ama keena daalka ka mid ah marka qofka uu stressku aad ugu bato uu xaaladaasi galo uu waxba ka qaban kari waayo xaaladihii markaa taagnaa. Marka kaasina wuxuu u baahan yahay in dib loogu noqdo shaqadii la sameeyo shaqooyinkaasi oo focuskaaga iyo dib u celin doona bal adiga in aad dib focus u samayso shaqooyinka guriga oo kale ka shaqayso aad adigu ma garanaysaa naftaadii ka shaqayso aad qofkaasi uu noqdo qof calal aqal bal ku soo noqdo xaalad iyo inaad bal aad shower dheer iyo aad qaadato xaaladaha dejiya stresska aad waxoogaa socdo samayso aad nolosha aanad isdhiibin ee aad kasii socoto. kaasina waxa weeyaan waxyaalaha aynu ku maamuli karayno daalka iyo dhibaatada uu keeno stressku. Markaad intaa kaga soo tagto daalka guud ahaan rag iyo dumarkaba ka dhexeeya waxaa jira haddaba daal iyagu xagga hormoonka iyo waxyaalaha oo dumarka u gaara. Waxaa ka mid ah sida menstrual cycle-ka xilliga ay toddobaad ku jiraan oo kale, uurka xilliga ay leeyihiin iyo marka ay dhalaan oo kale, xilliga ay dhiigga joojinayaan iyo xilliga ay joojiyaan oo kale, iyo waxa la yidhaha thyroid disorders oo ah qanjirkan cunaha ku yaalo isaguna khalkhal ku sameeya ama dumarku ay ka khalkhal badan yihiin marka loo eego ragga. Waxaa kale oo iyagana u gaara ama ku badan inay ironta ama dhiig yaraantu ay iyaga ku badan tahay iyo xanuunada iyagana ku badan sida lubuska ama systemic lupus erythematosus xanuun la yidhaahdo oo iyagana ku badan iyo qeybta depressionka iyo anxiety-ga oo la yidhaahdo psychology ahaan iyo physiology ahaanba waxay kaga duwan yihiin ragga oo waxay u nugul yihiin depressionka iyo anxiety-ga ama qofka inuu werwer iyo walaac uu ku badan yahay. Waxaa kale oo ku badan wax loo yaqaano sleep disorders oo iyaguna inta badan dumarka ay ka cawdaan inay hurdo la-aan hayso xilliyada kala duwan ee noloshooda gaar ahaan xilliga ay ku jiraan ay uurka leeyihiin gaar ahaan bilaha ugu horeeya iyo bilaha ugu dambeeya. Waxaa kale oo jira lifestyle factorska waxa loo yaqaano oo iyaguna ay ka mid tahay in ay kala mid noqon karaysa kuwii hore kasoo sheekeynayay qofka haddii dehydration ku dhaco oo kale iyo biyo la-aan ama cuntadiisu ay ka khalkhasho sida vitamin B12 oo kale iyo iron iyo waxaas ku yalaato. Marka muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan haddii qofkani dumarkii ay isku aragto daalka xaaladaha aan soo sheegnay ay ku jirto inay garato inay horta xaaladahan ay yihiin kuwa dhibaatadan wata dhakhtarka ugu dhowna ay kala tashato in si loo jeegarayo inay hormoonadoodu ay khalkhal ku jiro si loo habeeyo hormoonada ama haddii ay ironta iyo vitamin B12 keedu khalkhal ku jiro in laga caawiyo oo vitamin B12 fiican oo markaa ku habboon la siiyo ama haddii ay jiraan depression iyo xanuunadaasina in talooyina la siiyo lana daweeyo oo haddii heer in la daweeyo ay gaadhsiisan tahay la daweeyo. Marka muhiimadda ugu weyn halkan aan ku gudbinayna waxa weeyaan qofka in la dhiirigeliyo inuu caafimaadkiisa u istaago in qof kale oo u maqani aanu jirin isaga mooyaane. Marka inuu noqdo qofku isagu inuu naftiisa u istaago caafimaadkiisa raadsado noloshiisana uu isagu ku qumo qofna aanu u daba istaagin waayo wuxuu gaari doonaa xaalad aan cidna wax ka qaban doonin. Intaynu isku maqlayno ama isku arkayno videogan la mid ah waxaan jecelahay inaad su-aalihiinana xagga hoose noogu reebtaan insha allahu aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.